sidoo saaxiibayaal markale waxaan la wadaagayaa xogtii wararka ugu dambeeyay dagaaladii duqeymihii xalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. sidoo kale waxaan la wadaagayaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa saacada la taagay furmaha hore ee dagaalka dib ugu laabtay. waxaa la yaab ama kaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed in madaxweynaha maanta saacadan la taagay uu dib ugu laabtay furimaha hore ee dagaalka ciidanka dawladda iyo kooxda Al-Shabaab isku hor fadhiyaan oo furimaha hore ee dagaalka ah. waxaan ka codsanayaa haddii aad nagu cusubtahay inaad subscribe dhada channelka like-na dhaasiina shiri gelisid lana saaxiibtaada aad iyo aad u mahadsantahay. duqeymo iyo dagaal xalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. shalay galinkii dambeeyay markii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ka tirsan weerar hooyaal ay ku soo qaadeen fariisan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. weerarka hooyaasha kadib ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka waxay duqeymo ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooy iyo nawaaxigeeda. halkaas oo lagu duqeeyay xubno kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo shalay hoobiyaal ku soo tuuray degmada Afgooy halkaas oo ciidanka xoogga dalka fariisan ay ku lahaayeen. duqeynta gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacday xalay waxaa lagu dilay horjoogiyaal iyo tiro dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab. horjoogiyaasha kooxda Al-Shabaab loogu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa horjoogihii u qaabilsanaa kooxda Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Hoose madaxa howlgelinta iyo qaraxyada weerarada lagu qaado fariismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. sidoo kale waxay duqeyn toos ah xalay ka dhacday gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Al-Kawsar, Masaajid Cali Guduud iyo degmada Aadan Yabaal. sidoo kale duqeynta xalay degmada Aadan Yabaal iyo Al-Kawsar ka dhacday Masaajid Cali Guduud waxaa lagu dilay dagaalyahano iyo horjoogiyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dagaalyahanada iyo horjoogiyaasha kooxda Al-Shabaab xal loogu dilay ayaa tiradooda lagu sheegay inay kor u dhaafayaan 120 dagaalyahano iyo horjoogiyaal iskugu jiro. duqeyntan xalay Al-Shabaab lagu beegsaday dagaalyahanada ka tirsan iyo horjoogiyaal ka tirsan ayaa noqonaysa dabargo weyn kadib markii kooxda Al-Shabaab muddooyinkii dambe ay bilaabeen weerar gaadmo ay ku soo qaadaan xerooyinka ciidanka dawladda ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. dhawaan ayay markii dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar qaraxay ku bilowday fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Awdheegle, Sabiib iyo Caanoole iyo Bariire. balse nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka sii warqabay dhagarta kooxda Al-Shabaab ee maleegaya ayaa weerarkaasi ka hortagay. isku soo wada dub Soomaaliya waxaa ka socda dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab kaas oo la rajeynayo in bilaha soo socda kooxda Al-Shabaab gabi ahaanba Soomaaliya laga saaro. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay furmaha hore dagaalka. madaxweynaha ayaa ku wajahan furmaha hore dagaalka gaar ahaan meel kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay isku hor fadhiyaan. waxaa dhiirigelin iyo bogaadin ah in madaxweynaha Soomaaliya asagoo 70 jir ah oo qolkii qabowga ah xafiiskiisa uu ka baxay kuleelkan jira aad arkaysid oo furmaha hore dagaalku la waliba meel ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab isku hor fadhiyaan inuu caawa ku hooyanayo waa halis weyn. balse taas bedelkeedu waxay dhiirigelin u tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaga har iyo habeen hortaagan kooxda Al-Shabaab. waxaa dhiirigelin u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in madaxweynihii qaranka uu caawa kula hooyanayo furimaha hore dagaalka waliba isagoo xiran tuuto waxba aan ka duwaneyn ciidanka furimaha hore dagaalka ku jira. sidoo kale madaxweynaha ayaa la rajeynayaa in furimaha hore dagaalka uu kula kulmo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hogaaminaysa dagaalka dhanka iyo ciidanka dadka deegaanka. maalmo ka hor ayay markii madaxweynaha u muuqday degmada Moqore ee gobolka Hiiraan halkaas oo kula kulmay macuusleyda beesha Xawaadle oo iyaga halkaas dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ka wada. sidoo kale madaxweynaha ayaa booqday degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo kula kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada dadka deegaanka. guud ahaan Hiiraan waxaa ka socda dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waana meelaha ugu badan ee kooxda Al-Shabaab gacantooda laga saaray labadii sano ee la soo dhaafay. tan iyo dib u doorashadii madaxweynaha Xasan Sheekh guud ahaan Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab waxaa laga saaray deegaano kor u dhaafaya 120 deegaan. in Al-Shabaab 120 deegaan laga saaro taas waxay muujinaysaa tabarta kooxda Al-Shabaab halka ay gaarsiisanta iyo halka ay marayso. afhayeenka kooxda Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa maalmo ka hor fariin soo diray isagoo ka cabanaya duqeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka geysanayaan gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib. degmada Jilib sidaan ogsoonaa ama aan ka warqabno waa fariisinta kooxda Al-Shabaab ee ugu weyn ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib. Al-Shabaab halkaas ay ka soo aasaan weerarada iyo qaraxyada ay ku qaadaan fariismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. in afhayeenkii kooxda Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere isagoo cawaadayo media soo istaagay waxay muujinaysaa dabargo'a kooxda Al-Shabaab iyo tabarta Al-Shabaab halka ay marayso saacada la taagan yahay. in madaxweynihii qaranka Soomaaliya isagoo 70 jir ah xilligan la joogo kuleel ay tahay oo diyaaradda raaco furimaha hore dagaalka ku laabto waa dhiirigelin iyo sharaf iyo bogaadin loo muujinayo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee har habeen dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. isku soo wada dub daawadayaal haddii intaan la soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdid like-na dhaasiina share gareysid si aan u helno saaxiibo adigoo kale u wanaagsan. sidoo kale waxaan ka codsanayaa
inaad qaybta hoose committee aragtida nagula wadaagtid in madaxweynaha isagoo 70 jir ah xilligan la taagay kuleel ay tahay furimaha hore dagaalka dib ugu wali waxa arin la yaab leh ah in madaxweynihii uu caawa ku hooriyanayo furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan meel ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda al-shabaab ee isku hor fadhiyaan iyadoo markasta ay dhici karto dagaal foolka fool ah dhaxmara labada dhinac madaxweynihiina uu ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka